magacaygu waa Sultan Cabdullaahi Maxamuud maamulaha macadka culumta daraasaadka siyaasadda iyo teknolojiyadda idnimo Institute for Political Science and Knowledge sidoo kale macna ka tirsan macallimiinta dhiga macadka culumta daraasaadka siyaasadda casharadeenii aynu dib u bilaabi doonaa insha Allah idan ka alle casharadan ka horeeyay waxaan ku soo dhignay job analyzing-ka casharkan hadda u joodaana waa job description-ka oo insha Allah aanu jecelnahay inaynu sharaxno hadii Allah admo marka meelo badan waa ka soo sharaxnay job analyzing-ka mistakeskiisa iyo waxyaalo uu kala baxo iyo qaybihiisa waanu soo aragnay waxaanu ka hadlaynaa dhammaan waxay ahaayeen waa wixii qofka lagu shaqaaleysiin lahaa sida hiring-ka qofka loo shaqaaleysiin lahaa performance-ga waxa weeye consultancy-ga waxa weeyaan competition-iska waxaas oo dhan qofku waxa looga baahan yahay job description-ka ama job analyzing-ka marka maanta casharkeenu wuxuu ku saabsan yahay job description-ka qaabkii shaqada loo bayaanin lahaa description-ka eraya waxa weeye waa faahfaahin marka job description waxa weeye waa is writing record in la qoro la diiwaangeliyo of the duties waxyaalaha waajibaadka la isaga baahan yahay waxaan maxaa looga baahan yahay qofkan responsibilitieskiisa and accountabilitieskiisa iyo waxyaalaha mas'uuliyadda iyo la xisaabtankiisa and requirement waxyaalaha looga baahan of the particular job is concerned with the job itself not with the job holders qofkaas waxa la rabaa inuu sanno qof job holders qof shaqooyin kale ama meelo kale wax ka hayo qof clear sidoo kale waa is segment waxaan ku qeexi karnaa describe waxaan ku qeexirnaa the job shaqo in such as waxa kamid terms it is a title in shaqada title-keeda la cadeeyo boss-keeda la cadeeyo location-keeda la cadeeyo duties-keeda la cadeeyo shaqa ahaan la cadeeyo work conditions la socota shaqada xaaladeeda la cadeeyo and hazards waxyaalaha khataraheeda iyo waxaas meel la cadeeyo waa muhiim shaqada marka aad soo dhajinayso goobteeda location-keeda waxyaalaha la isaga baahan yahay personal data description-ka waxaasoo dhan waa wax lagaa weydiinayo wey idanka alle marka waa wax lagaaga baahan yahay inaad la socoto analyze garayso wey sidoo kale definition-kii Philip wuxuu job description waa is an waa job description in organization ama organized actual statement kaas oo sax ah of the duties waajibaadka markii aad rabto job description-ka inaad ku qodho ila job description-ku waxa weeye shaqadan title-keedii location-keedii faahfaahinteedii warbixinteedii cidda shaqada u qalanta waxaasoo dhan baa ku analyze garaynaysaa marka organize actual statement waxaad ku qoraysaa actual statement saxa of the duties and responsibility-ga mas'uuliyadii awoodihii waxyaalihii qofka looga baahnaa intaas dhan waa loo baahay specific jobs waxyaalaha cayiman it is brief what to be done how to be done why standard of the functionska waxyaalo uu qabanayo muxuu shaqada u soo ablegareeyay why that's definition appropriate to the authority and conduct of the job is waxaas oo dhan marka inaan la garayso waa muhiim sidoo kale writing job description waxyaalaha loo baahan yahay in la qoro marka writing lagu jira job